ومahadsantahay Cawil Daahir Salaad waa kulankii golaha wasiirada ee 133 ee maanta si rasmi ah ugu furmay xarunta aan dhex taaganahay ee jaamacadda Carabta isla markaana waxa shir gudoominaya 6 bilood ee soo socota wasiirka iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale kulankan waxa ka soo qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga iyo sidaad aragtaan wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Masar Al-Sayd Ahmed Abul Khayr iyo wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Yemen Abu Bakr Al-Gharbi daawadayaal muhiimadda gaarka ah ee shirkan ee maanta ay Soomaaliya ugu faa'iideysan doonto ayaa waxa ay tahay iyadoo 19 sano ee la soo dhaafay wadanka Soomaaliya ay xubin ka ahayd ilaa 7 jaamacadda Carabta Soomaaliya walow haatan fursad qaali ah u tahay in 3 bilood ay soo socoto dawladda Soomaaliya ay shir gudoomin doonto shirkan jaamacadda Carabta ayaana waxaan wax ka weydiinay muhiimadda gaarka ah oo shirkan u leeyahay ugu horeynta koowaad aan kula kulanay xarunta jaamacadda Carabta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aan weydiinay muhiimadda gaarka uu leeyahay shirkan waxa ay tahay sida la socoto wuxuu u leeyahay waxaan la wareegnay fadhigii maanta gudoonka golaha wasiirada Carabta wasiirada arrimaha dibadda aan la wareegnay sidaas sheegtana waxaan hay doonaa ilaa 6 bilood oo taas waxay u tahay sharaf ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda ku meel gaarka intaba in Soomaaliya ay la wareegtay gudoonka maaragtay golaha wasiirada Carabta iyo sidoo kale gudiyada golaha wasiirada oo ka kooban yahay oo dhan ama jaamacadda Carabta ee koonta sida gudiga siyaasadda dhaqaalaha ammaanka arrimaha bulshada oo runtii safiirro Soomaaliyeed oo maaragtay mukhadram ama veteran ay kala hogaaminayeen ay si khibrad iyo kafaalan u maamuleen anagana waxaan rajaynayaa ilaahay inuu guuleeyo maaragtay maamulka golaha labada maalin ee soo socota iyo 6 bilood dhiman intaba wasiir waxa jirta in wadamada Carabta jaamacadda Carabta ay u qoondeysay dhaqaale ka kooban ilaa $1 milyan oo dollar bil waliba sida la socono waad iska ku gacan saarteen jaamacadda Carabta maadaama dhaqaale dari aad u farabalan ay hayso dawladda Soomaaliya isla markaana amaankii uu jiro qalqal waxyaabaha ugu muhiimsan oo aad maanta gudbisay waxa kamid ah maya waa qayb kamid ah 3 milyan ee waxa loogu talagalay dawladda in la siiyo maana diidine macni qaabka loo soo gudbiyo baa mulaxadaad madaxweynaha ka muujiyay shirkii hore ee madaxda Carabta ee Qaahira Qatar laakiin hadda way ku jirtaa ajadayaasha aan soo gudbinay oo la ictimaaday qaraar ahaan ayada iyo diiwaangelin dawladda ay wado iyo maaragtay dawladda Soomaaliya in laga gacan siiyo la dagaalanka burcadbadeeda iyo argagixisadii waxa soo dhan markii qaraarada dhowr ah arki doontaan shirka markuu soo gabagaboobo ayaa Soomaaliya ugu jiro la ictimaaday arintaas dhaqaalahana waxa way ku jirtaa qaraaraadka in dawladihii ballanqaadkii ay ka dhabeeyaan ay u yabooheen dawladda Soomaaliya waxaa tahay shir gudoon wadamada Carabta 6 bilood ee soo socoto muhiimadda ugu weyn ee Soomaaliya isla markaana ay ugu faa'iideysan karto maadaama tan iyo xukuumadda dhexe ee Soomaaliya ay burburtay ilaa 19 sanadood laga joogo waxyaabaha muhiimka u ah maanta aad tiigsan doontaan maxaa kamid ah dabcan shir gudoonka waxa hor yaala qadiyad fara badan oo Soomaaliya kaliya ma taalo caalamka Carabta waa la socotaa qadiyada aad u kulkulul oo kala daranaya waxa yaala Falastiin waxa yaala qadiyada Darfur ee Suudaan waxa yaala qadiyada Ciraaq waxa yaala maaragtay qadiyada maaragtay cilaaqaadka ama khilaafaadka u dhaxeeya dawladaha Carabta dhexdooda qadiyada Falastiin oo ugu weyn iyo maaragtay qadiyada Suuriya iyo Yahuud isku hayaan arda Joolaan qadiyad fara badan hor yaala Soomaaliya qayb ay ka tahay runtii waxaan isleenahay uga faa'iideyso dawladdan inaan muujino qudrad iyo karti aan leenahay Soomaaliya hadana inaan maamuli karno maaragtay majliska iyo in dawladda Soomaaliya shacabka Soomaaliya looga faa'iideeyo kaalmada ay ka heli karaan dawladaha Carabta iyo maaragtay say qayb uga noqon karaan maamulaha hay'adaha kala duwan ee dawladaha Carabta ay ka kooban yihiin maadaama dadka go'aanka iyo ra'aasada la anaga aan haysaas ayaan rajaynaa waa maasantii daawadayaal sidoo kale shirkan waxa ka hadlay xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Al-Sayd Aamir Muusa isla markaana ku dheeraday qadiyadaha kala ah Yemen Falastiin Syria Iraq iyo Soomaaliya iyo sidoo kale Darfur oo looga hadlayo dhibaatooyinka haatan ka taagan Darfur ee dalka Suudaan sidoo kale daawadayaal waxa la filayaa bilaha soo socda ee janda weyn isla markaana ku saabsan qadiyada Soomaaliya siday u garab istaagi lahayd wadamada Carabta inuu hordhigo wasiirka iskaashiga caalamiga ee dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa kale oo la filayaa sidoo uu sheegay wasiirka iskaashiga caalamiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in la soo bandhigay qadiyadaha ku saabsan Yemen oo bilihii ugu dambeeyay ka taagnaayeen dhibaatooyin xoog leh kulankan waa kulankii 133 ee golaha wasiirada wadamada Carabta maanta si rasmi ah ugu furmay jaamacadda Carabta Mahad Carab oo Ali telefishinka Universal
xarunta jaamacadda carabta qaahira.